السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo عشرين لحلوة هذه Microsoft SQL Server kaasoo aynu kusoo qaadan doono casharkeenan downloading and installing Microsoft SQL Server 2019. habka loola soo degaysa marhaantaana loogu shubo computerka amase loogu duubo Microsoft SQL Server 2019 ayaynu casharkeena kusoo qaadan. haddaba saynu soo dhangoreyno Microsoft SQL Server 2019 browserkeena xaggiisa sare waxaynu ku qoranaa SQL Server 2019 kadibna enter baan leenahay. markuu same page-kan inoogu soo baxo halkan SQL Server 2019 aynu ku dhufanaa. kadibna markuu page-kan inoo soo baxo aynu ku dhufanaa download now. kadibna halkan waxaynu ka dooranaa platformka maxay tahay doonayna inaynu ku install gareyno Microsoft SQL Server 2019 kaasoo ah Windows. kadibna waxaan ku dhufanaa linkigana Preview SQL Server 2019 for Windows. kadibna waxaan ku dhufanaa continue. kadib marka foomkan inoo soo baxo dhammaantii foomkan la buuxinayaa si aynu ula soo degno versionka preview-ga isla marhaantaana maxay tahay tijaabada. halkan waxaynu haysanaa evaluation inuu qiimeeyno software-kan 180 kaasoo ah 6 bilood. hadda foomkan aynu buuxino marka. kadib markaad foomka soo buuxiso waxaad ku dhufanaysaa continue. kadibna waxaan ku dhufanaa download. kadibna waxaan ku dhufanaa start download. kadib open baan leenahay. kadib waxaa noo soo baxaya foomkan SQL Server 2019 oo ay ku jiraan saddexdan option ee kala basic, custom iyo download media. kadibna waxaan ku dhufanaa download media option-kan halkan waxaan ka dooranaa package-ka aynu soo downloadsanaa nooca uu noqonayo waxaynu gudaynaa ISO file-kaas oo ah image. kadib halkan waxaad ka dooranaysaa location-kaad ku kaydinayso. kadibna download aad ku dhufanaysaa. anigu hore ayaan soo download gareeyay markaa download aad ku dhufanaysaa file-ka ayaa kusoo download gareysmaya. kadib aynu halkan browser-keeni ku noqono sababta waxaa laga maarmaanaya inaynu haddana soo download gareyno file kale oo la yidhaahdo Microsoft SQL Server Management Studio kaasoo inoo qaabilsanaan qaybta Management Studio. kadib halkan searching-ka ayaan haddana waxaan ku qoranaa SQL Server Management Studio 2019. kadibna enter baan leenahay. kadib linkigan ugu sarreeya ayaan click gareynaa ee ah download Microsoft SQL Server Management Studio. hoos ayaynu degaynaa markaa. halkan waxaad ku aragtaan download Microsoft SQL Server Management Studio 18.2 kaasoo support gareynaya Microsoft SQL Server 2019. kadibna isagana si aad la soo degtaan waxaad ku dhufanaysaa linkigan ay ku qoran tahay download SQL Server Management Studio 18.2. hadda markaad labada file soo download gareyso isla marhaantaana ay kusoo galaan local hard drive-kaaga. sidaad halkan ku aragto SQL Server 2019 waxa weeyaan waa image ayana lagu hor install gareynaa computerka. haddaba laba jeer click siino si inoogu furmo. kadibna sidabkan ayaynu right click leenahay run as administrator baan leenahay kana soo minimize gareeyo yaraynu sugaynaa. haddaba markuu foomkan SQL Server Installation Center-kii noo soo baxo waxaynu ku dhufanaa halkan installation-ka. kadibna waxaan dooranaa linkigan u sarreeya ah new SQL Server standalone installation in click siinaynaa yaraynu sugaynaa isagana. kadib markuu foomkan inoo soo baxo sidaad halkan ku aragtaan waxa weeyaan SQL Server 2019 CTP oo ah Community Technology Preview oo ah version preview waxaynu leeyahay specify every edition ama maxay tahay enter the product. kadib markaanu product-ka meeshan waxaan dooranaa specify every edition. kadib waxaan dooranaa develop waqti xaadirkan next ayaan leenahay. license terms-ka accept ayaan leenahay next ayaan leenahay. wax update aynu ma baahnin maadaama oo aan maxay tahay version-ka ugu dambeeyay 19 kan isticmaalayno next ayaan leenahay. error-kan yar waxaan sheegaysaa next ayaan leenahay. sidaan ku aragtaan install rule-kuna dhammaantood waxa weeyaan waa pass marka laga reebo kan oo one ah oo Windows firewall ah isna wax saarsi weyn maaha not big deal inaga istaan leenahay. kadib waxaan soo baxay instance features. kadibna waxaan leenahay select all. kadib waxaan iska reebinaa machine-kan iyo polybase. sidoo kale waxaan iska reebinaa machine learning-kan oo kale iyo dhammaan kuwan hoos oo kale iyagana waxa saas ugu sii baahnin dhammaantood aan check baan odhanaa. kadibna inta ay gudaynaa next ayaan leenahay. kadib instance configuration marka soo baxo halkan laba option aynu siinayna default instance iyo name instance. haddii name instance doorto halkan aad magaca gashanayso marka aynu waxaan gudaynaa default instance. kadibna next ayaan leenahay. halkan server configuration-ka halkan oo sareysan baynu automatic ka dhiganaa. kadibna next ayaan leenahay. halkan database engine configuration-ka isaguna waxaynu soo dhigayaa laba option oo ah authentication mode kaasoo ah Windows authentication mode iyo mix mode. kadibna mix mode baan ka dhiganaa. halkan waxaan gashanaa password aynu hadda tola ku galno 123. halkan waxaan gelinayaa confirm password-kana 123. kadib halkan waxaanu leeyahay specify SQL Server Administrator. kadibna add current user baan leenahay next baan soo odhanaa. mar kale waxaan leenahay add current user. kadibna next install baan leenahay. kadib waxaan iska sugaynaa inta installation-ka qaadanayo ilaa 10 daqiiqo 12 daqiiqo meelaha. kadib waxa uu successfully install dhammaan features-kan waa inoo install gareysmay oo halkan status-ka kan succeeded leh isla marhaantaana wax feature kuma jiro. kadibna close baan leenahay. sidaan waxa ugu duuban Microsoft SQL Server 2019. kadib waxaan ku shaqeynaa sidabkii kale ahaa SQL Server Management Studio right click baan leenahay run as administrator baan isla leenahay. kadib waxaan soo baxay foomkan ah Microsoft SQL Server Management Studio install ayaan leeyahay. isna waqti yar qaadanaya waan iska sugaynaa marka. isna sadartan oo ku dhamaaday waxa uu setup complete. all specified components have been installed successfully. close leenahay kana close ma iska leenahay. halkan search inta ayaa waxaan ku qoranaa SQL Server Management Studio. kadibna kan aynu click leenahay. kadib form-kan ayaan soo baxay SQL Server Management Studio isla markaana waxaan qorataan yahay copyright ku 2019 halkan version ku yahay 18.2 isla markaana soo baad kareynaya Microsoft SQL Server 2019. hadda markuu form-kan soo baxay uu leeyahay connected to server. halkan waxaan ku deynaa server type-ka database engine-ka. halkan server name-kan waxa
كيان PC كمبيوتر كنا مجلسة halkan waxaad aragtaa notification inuu yahay Windows Authentication isla markaana halkan waxaan ka dhigan karnaa SQL Server Authentication halkan oo ah System Administrator iyo halkan oo ah passwordkeen markii dhow tolo soo sameynay oo 1 2 3 ahaa in ku klik karnaa isagana waxaan oran karnaa connect markaa inagu ku galnay SQL Server Authentication connect lana okay markaa Microsoft SQL Server Management Studio ayuu shaqeynaya oo connected u yahay database-yada iyo dhammaan sida ayana loola soo degaa isla markaana lagu install karayo Microsoft SQL Server 2019 salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh